مسؤولين ay hogaaminayeen xildhibaano iyo wasiir ka tirsan dowlad goboleedka Galmudug qaybna ay ka yihiin maamulka caasimadda Galmudug ayaa booqasho ku tagay kaam dooxo oo ku yaala duleedka magaalada Dhuusamareeb halkaasi oo ay isugu yimaadeen dad ka soo barakacay deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolka Galgaduud gaar ahaan goobaha ay joogaan argagixisada oo dadka badankood ay kala soo carareen naftooda iyo tan carruurta ay dhaleen wafdigan ayaa u kuurgalay baahiyaha gaarka ah ee dadkaasi oo ka soo qaxay deegaano inta badan aan xor ahayn sidoo kalena ay u dheer yihiin abaaro waxaana hadda ay nolol duruuf ku dheehan tahay ku joogaan duleedka caasimadda dadka ku sugan kaamkan hogaankooda ayaa mas'uuliyiinta booqday la wadaagay baahiyaha nololeed ee jira iyo meelaha ay ka yimaadeen dadkan waxay ka soo qaxeen degmooyinka la haysto oo aan xorta ahayn sida ceel la hele ceel garas ceel qooxle maalinnugur ordweyn dabdheer wamooley ceel meegaag meelahaas ka yimaadeen 580 qoys waaye subax walbana dad uun baa soo siyaada hadee waxaan rabnaa in wixii wax u qaban kara inay wax u qabtaan oo dadkan siiyaan caawiyaan marka waxaan ka rabnaa dawladda iyo maamulka degmada in dadkan garab istaag u sameeyaan maadaama dad soo barakacay ay yihiin annaguna maamulkoodii aan nahay maadaama maanta meeshoodii aysan joogin oo degmadii ay ku dhasheen iyo waddankoodii aysan joogin maamulka iyo dawladda waxaan uga baahannahay inay garab istaag u sameeyaan haddii ilaahay idmo annaguna waa u taagannahay inaan kala qayb galno mar walba diyaaran u nahay waxaan aad ugu soo dhaweynaa maamulka degmada Dhuusamareeb duqa caasimadda Galmudug ahna gudoomiyaha Dhuusamareeb Macalin Cabdiraxmaan Geedo Qorow ayaa madaxda ugu sareysa Galmudug ugu baaqay in la garab istaago dadkan sidoo kalena loo xoreeyo deegaanadii ay ka soo qaxeen oo inta badan ay haystaan kooxaha argagixisada ah ee Al-Shabaab maanta waxaan soo booqanay annagoo wafdi culusa wasiirro nagu jiraan xildhibaano nagu jiraan maamulka caasimadda iyo maamulka ceel garas kaamkan la yiraahdo kaam dooxa oo caasimadda Dhuusamareeb dhankeeda bari ku yaala oo dadweynahan aad u tirada badan oo soo barakacay maaragtay ay joogaan runtii waxa jirta abaar baahsan oo ama Soomaaliya ka jirta ama Galmudug ka jirta xoolihii aan suuq lahayn colaado iyo dhibaatooyin iyo maaragtay roobabkii oo iska soo daahay hase yeeshee dadkan ayaga hadda waxay la dheeraad yihiin waa dad macnaha deegaanadoodii la haysto oo shabaab ay haystaan waxaan kale u soo jeedinayaa dawladda Galmudug iyo midda Soomaaliyaba dadkan meeshaan lagu mahay kare waxa loo baahan yahay in la xoreeyo wadankii ay ka yimaadeen la garab qabto maamulka la magacaabay la xoreeyo degmooyinka laga haysto Galmudug waxaan hay'adaha samafalka iyo dadka doonariska ah wax bixiya iyo inta bini'aadanimada u danqato dhan u soo jeedinaa in dadkan maaragtay la soo garab istaago kormeerkan ayay qayb ka ahaayeen mas'uuliyiinta maamulka ceel garas ee dowlad goboleedka Galmudug oo si gaar ah muddooyinkan ugu howlanaa wax ka qabashada xaaladaha haysta dadkan Cabdullaahi Warsamroble warbaahinta qaranka Dhuusamareeb